madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta kulan la yeeshay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo dhakhaatiirta ku howlan ka hortagga xanuunka coronavirus. madaxweynaha oo markii kulanku soo dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa waxa halkaas uu ka jeediyay hadal dheer waxaana qayb kamid ah hadalkiisa uu madaxweynuhu ugu jawaabay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo dhawaan madaxweynaha fariin toos ah warbaahinta uu mariyay. dhakhaatiirta maanta dalka idinka hogaaminaya idinkaan dhageysanaa laakiin hana qasina oo kulba dhahan oo jahinin dhakhtarada laftooda muxuu dhigay duul culimo qasana laba wiil ka hor dhakhtaradina waaweyn ugu aragsan rag kamid qayb kamid ah oo aad loo qadariyo isaguna sheegay inuu yahay dhakhtarka ugu cilmi badan maanta Soomaaliland anaguna aan ku ogolahay oo ku doos nin kasta cilmi badan maanta fariin bay noo soo diray uu leeyahay kala fogaada caafimaadka ilaaliya uu inagu adkeeyay وين كقاضي قاد كتشوتيا تذكر هلا إيرانيو ماذا حوين مرحبا ما أنت وحي أرتها وحقول هالضيق أو حاجات شري وأقول فالأمر كإلهي هذا أنا إسرائيل اخترك أيام ما أنت اللي قاد كالتشوتي وذاك هلا كذي شقاريس والله بقرة وقبت حفلوا من السوق هنا من باير ورنو يدور على مقصان حق البنود شيديني هذين اختردت كان يسوق هيريان واركسنا تن دائرة إليهن إيجونا دم مال قرى هنومري اختردوا إيجو هنا تصالة سلوك رتبه سلوك على دركايو واحد لو شيء إنسان هكم موضوع خطير ولي بكون رجسنا ووي تاسينا ويجي حسون خطير تاهو تا ولا صوت عنانا ياي اختردوا ده كان مقرأيه محمريه دانون دنو بتشهي عبد الرحيم مول إسماعيل شبكة دورة كيلس نيوز مقالة هرقيزة.